السلام عليكم أصحابي سو دواada aan leeyahay fadlan muuqaalkan haduu idin soo gaaro like saar siin share gareey saaxiibadeyda kuwa nagu cusubna jaralkan subscribe ha saaraan unbelievable maanta kulamada ka dhacay horyaalka Premier League Manchester City oo guuleeda xiriirka sii wada horyaalka Premier League 4 kulan oo xiriir ah winners ayaa qaatay halka Chelsea la dhex jiiday maanta garoonkeeda Istanbul Bridge kooxda xilli ciyaareedka hore u soo dalacday horyaalka Premier League soo dhawaada aan leeyahay Chelsea hadii la dhex jiido gurigeeda kooxda ayadana London ka dhisay Tottenham oo ayadana wacdaradeeda sii wadata kulamada Premier League la dheelay maanta dul istaagi doona asxaabta qiimaha badan dhamaantiin muuqaalka iska saara like-ta kushwa waa free waa lacag la'aan si muuqaalkeena saaxiibuna ku soo gaaro aad baa idinkaga mahad celinaya intaasna saaxiibada nagu cusubna iska saara janaalka subscribe ma fahamteen aad u mahadsantiin aan ku hormarno kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa gurigeeda ku soo dhaweysay dhigeeda Fulham kulan ka tirsan horyaalka Premier League isbuuciisii afraad tababaraha Manchester City Pep Guardiola inuu qaliin ku maqnaa wad ogeedeen ku xigeenkiisa ama gacan yariis ayaa sii maamulay labadii kulan oo maqnaa Manchester City wax naaqus ama wax dib u dhac maysan ku imaanin labadii kulan oo maqnaa Man City waxay qaadatay 6 points waliba kulankan bandhig wali waxa soo bandhigay ciyaaryahanka loo doortay habeen hore best player ama striker-ka ugu wanaagsanaa ayaa shabaqa gaaray hadana gaaray hat-trick ka kacay Erling Haaland Manchester City hadda waqtiga aan kula hadlaa red now waa hogaamiyaasha horyaalka Premier League waana hogaamiyaasha gool dhalinta horyaalka Premier League Erling Haaland inta goolka koowaad waxa uu dhigay Man City Julian Alvarez daqiiqadii 32 Fulham jawaab degdeg ayay ka bixisay daqiiqadii 34 Man City goolka barbaraha ayaa lagu dhaliyay xaalad aan fiicnaan ayaa haafka lagu maray Etihad Stadium laakiin wax walba waxay isbedeleen haafkii dambe wallahi garaleysho maanta godka ayaa biyo kugu soo gal waxa imaadan in ay baqaynin oo dhulka lista aadayo saas dadku u shabihayo maanta Sununes kulankaas lagu soo bilaabay kaydka ayuu ku soo bilaawday kulamada kale ayaa rajeynaa in oo line up kale Man City wax walba way isbedeleen haafkii dambe markii kubada waali ah oo macnaa maanta ilaa 3 mar goolasho dhalay 3 kamid ah faara loo fiiriyay halka taageerayaasha macaaradka caawi ay leeyihiin hadii Man City ay horyaalka qaado ya horyaalka ay qaado Man City waa horyaal nooc ah kan waxa leeyahay offset caadi ah Emmanuel Akanji waxa uu leeyahay hadii uu soo taaban lahaa kubada ay offset ahaan lahayd Akanji Stones aka waxa ka dhigay 2-1 ciyaarta daqiiqada markay sii socoteen rigooro lagu garay xiriyayahanka reer Argentina Julian Alvarez penalty-gaas waxa qaatay si awood ay ku dheehan tahay Erling Haaland si wanaagsan ayuu u dhameystiray goolkii hat-trick ugu dambeeyay goolkii saddexaad daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ay imaadeen Manchester City top ay ku socotaa hambali ayaa leeyahay dhammaan taageerayaasha tiisaniska meelo boodinida daafeedka joogta muuqaalkana sii share gareeya hadda halkaas ugu gudbo guusha taariikhiga ahayd ee gaartay maanta Manchester City kooxda kubadda cagta Chelsea ayadana dhigeeda waa loogu imaado gurigeeda loogu imaado Chelsea waliba Istanbul Bridge ayaa la dhex jiiday koox ka imaada Serie B xilli ciyaareedka hore Bournemouth ayaa intee qabatay macnaha 3 dhibcood laga qaatay ciyaaryahankii hore ee Manchester United amaahda kaga maqnaa sheeg adiga Anthony Arango ayaa gool caaqaba leh ka dhigay kooxda kubadda cagta Chelsea xaalad wanaagsan kuma jiro waalaytaage ku jirta wallahi san xal ma idin noqoto Mauricio Pochettino 4 kulan ayuu dheelay horyaalka Premier League still wuxuu dhumiyay 4 dhibcood oo dhumiyay hal kulan la garaacay kulan Chelsea barbara oo la galay way ka badan 7 dhibcood oo dhumiyay la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah 4 kulan oo dheelay Pochettino kulan Liverpool barbara la galay kulan way badiyeen 2 kulan waa la garaacay ka waran waxay haysataa 4 dhibcood ay haystaan markaas Chelsea 7 dhibcoodna way lose gareyso waa marka dadka ay haystaan dhibco fiican kooxaha performance fiican xil ciyaareedkan ku jiro waxa kamid ah kooxda Man City Tottenham Hotspur ku performance ku bilowday oo 10 dhibcood ilaa 12 dhibcood wixii ka sareeysto iyo West Ham kooxaha top and top ku bilowday xil ciyaareedkan Arsenal naftirkeeda hal kulan ay barbara gashay oo maleynayaan برينو waxay maanta waxa loogu imaan doonaa Emirates waxa uu imaan doonaa dhigeeda Manchester United markaas xabtida qiimaha badan horyaalka Premier League xaaladiisa halkaas ayuu maraya Chelsea cuqubada haysto maxay kula tahay adiga sidee isleedahay qaybta commentiga waa inoogu wadaagi kartaa Chelsea ma hore idin sheeg isbedel macalin isbedel maamul isbedel ciyaaryahan galay
كو وحكتجي مامل كي أبرام في جا بحي مامل عسوا ماضي معاني كي أبحي معاني كنا ماضي سديد عياري أنا بحدي تدبع عياري أنا ماضي وحنا إن إسلاق بصدام ومعنا وحنا إن إسلاق بصدام وجلس وحبا هنتا كبض إن جدار كسر إنسان بكتيريا كبحان مركز كذب لا markaas kadib le jalsa hadii wax loo soo adaalnay hadii kale to arki doonaa marka dib isku laabta ayaa idin leeyahay performance-giina qaabkiina aad u liitaa istarliga idin kugu fiican saasa ka soo hartay ciyaaryahanadii boqol ku milyan laga soo bixiyay aaba jeebka la gashtay aan hooyay albaabka ee xira jalsi mucaarado fadhiga ka caadin kale halkaas ugu gudbeena Premier League wiji malaana saxabta qiimaha badan wad ogtiin Tottenham Harry Kane iska direen Soomaan Harry Kane direen soo homine kabtan karigtaan سوقنا العكس في عني جنيع عياريان بدن يسوقاتين جالس توتنهام هوسبر مانتي كم بري كابتن كهراء مان سيتي يكوح زبال لكي معناه سيربيده وحال يرياكو سوق الضي والو سوق الضي ياكو سوق الضي بريمير ليج ياكو سوق الضي وحال النووي وما قناتينا بريمير ليج ليش ولا قبتي بان لي استل وحال على هاي جوشي ugu horeysay على عيارات كوريالka بريمير ليج inay gaarto oo 5 gool laga kiciyay Son Mil Hatri oo ka kacay labada gool oo kale cid dhalisay ma ogi ma daawanin bukulankaas wax kale oo ka sii sheego malahan kora ka fiiri maadaama laba kooxood oo weyn dheela Big Six-ka Tottenham ayada xataa Big Six-ka waa laakiin Chelsea iyo Man City isku daawanaya aniga marka cashana waa la adimo waa dikra gelina alxaq Allahu akbar marka waxa waaye Tottenham Hatri inuu Son Mil bisoo ku haya Tottenham in kubadda taag ee soo bandhigtan saaxiibada ay sheegayeen marwooyo Tottenham another level ay soo dhaaf alcabuna saacad qiimo badan aad u maasatid biriyo warjira biri garawa jaba goosa faniinayo Manchester United iyo Arsenal Fisas Liverpool Fias Aston Villa yareysan una imri wiilashiisa cabsi waa Liverpool waa idin sheegay adinka idin taala kolabow hada aad war aan maqleys Nunez ku soo bilaabo ha iska ka dheelo maadaama kullu kor laba gool oo ku dhaliyo wax aabaad ugu dhigtid ma aqaano gobbahan aabudinda iga daayay saas ku soo dhigaa ku dhac cabsi iyo soo shid aad ma iska saxaabtii qiimaha badan kaftanka waa iska jeclaan muuqaalka la saar si jargare maalul baan ku soo celaa no way bye bye هذا هالقص وجود جوش تاريخي هذا جارت مانتا مانشستر سيتي كوحدة كوبدا عكت جلسة أيضا نقيق هذا والله ما جروب هذا الله ما هذا جلسة ولي بإستانبول فريق أيا لنح جيدا كوح كإمادة سيربريح العيارات كهري بارنموث أيا إنتي قبطي معناها صدح اللي بعود لقى قاطع عياريان كي هري مانشستر يونايتد أما هذا كجا مقنع إيشيك هذيك أنتوني أرانجو أيا قول عاقبة لك اللي كوحدة كوبدا عكت جلسة جلسي حاد وناكسن كمجر واليتاجي كجرتا والله إنسان حال بيدين نقطة بريسي بوتشينو أفر كلنا أيو ليلوريا كبريمير ليج ستيل وحود دمي أفر نبعود دمي هل كلنا قراعي